Zamaanka hadda jooga, waxyaabaha dhibaatada weyn ku haya waa faqriga. Dowlad waliba waxay u dejisaa qorshe la dagaalanka faqriga. Faqriguna ma ahan wax nool oo si toos ah loo dili karo. Faqrigu waa qaab fikir ku jira dadka caqligooda. Sida ugu fiican loola dagaalami karana waa in dadka la wacyigeliyaa. Faqrinimadu ma ahan inaadan lacag haysan. Taajirnimaduna ma ahan inaad lacag haysato. Faqrinimadu waxay ka dhalataa haddii qofka caqligiisa sida la rabay uu isticmaali waayo, halka taajirnimaduna ka timaado kadib marka qofka si fiican uga faa'iideysto caqligiisa. Sida ay sheegeen culimada cilmi nafsiga, qofka caqliga faqiirnimo leh mar waliba wuxuu isticmaalaa in ka badan dakhligiisa lacagta soo gasho. Tusaale ahaan, haddii bil waliba mishaarkiisu yahay $100, wuxuu isticmaalaa 110. Micnaha waxaa lagu yeelanayaa $10. Laakiin qofka leh caqliyadda taajirnimo badanaa inta soo gasho in ka yar ayuu isticmaalaa. Haddii mishaarkiisu yahay $100, wuxuu isticmaalaa $90, wuxuuna meel dhigtaa $10. $10kaasi waxay u galaysaa sanduuqa kaydkiisa si ugu baxsado haddii ay soo wajahaan dhibaato qarash yari ah. Badanaa qofka caqliyadda taajirka leh deyn laguma yeesho, halka qofka caqliyadiisu tahay caqliyad faqiir ahaanayo qof dad badan deyn u haystaan. Qof waliba waxaa ku habboon inuu ku dadaalo sidii uu isu waafajin lahaa baahidiisa iyo dakhligiisa, kuna dadaalo in uusan hal mar wada isticmaalin qarashaadka soo galo. Qarnigii hore ayaa waxaa su'aal la weydiiyey maalqabeen u dhashay Ingiriiska, waxaana lagu yiri ka waran haddii dhammaan dadka laga soo ururiyo lacagahooda kadibna si isku mid ah loogu qaybiyo, ma la arki doonaa qof faqiir ah? Wuxuu yiri haddii sidaa la sameeyo muddo 2 sano gudahood, waxaa la arkayaa qofkii taajirka ahaa oo taajirnimadiisa sii korortay, halka qofkii faqiirka ahaana kusoo noqonayo faqiirnimadiisa. Waxaa arrinkani xukumaya waa caqliga qofka. Sidoo kale waxaad arkaysaa 2 qof oo hal mar wada helay lacag tiro ahaan iyo qiimo ahaanba isku mid ah, joogana hal magaalo, wada galay suuqa hal mar si ay u ganacsadaan. Muddo kadib waxaad arkaysaa mid oo lacagtiisii sii badanaysa, halka kan kale weli meeshiisii sii joogo oo xitaa deen loo haysto. Iska daaya inay lacagtii sii badato. Arrinku wuxuu ku xiran yahay qaabka fakarka qofka. Haddaba aan ku soo noqono ciwaankii xagga sare aad ku soo aragtay, nin darbijiif ahaan jiray oo noqday taajir maalgashade ah. Xilligii Chris Garner iyo wiilkiisa ay jiifan jireen meelaha u dhow musqulaha, marna kama uusan fikirin in sheekada noloshiisa ku saabsan loo bedeli doono filim Hollywood ah oo hirgala. Waxay ahayd 1980-maadkii markii Mr. Garner oo ahaa xilligaasi 27 sano jir iyo canugiisa ahaayeen guri la'aan, ayna ku noolaayeen magaalada San Francisco. Waxaa darbijiifnimada ku wehelisay xaaskiisa, waxaana arrintaasi ku kaliftay kadib markii laga saaray gurigii ay deganayeen oo kirada ay bixin waayeen. Mararka qaar waxay seexan jireen meelaha gawaarida la dhigto, kaniisadaha nawaaxigooda ama miisaska hoostooda. Waxay cuni jireen cuntada la soo daadiyo. Lacagta yar ee maalintii u helana wuxuu ku bixin jiray iskuulka uu wiilkiisa geeyey. Dhibkaasi aawadii, Mr. Garner wuxuu ku dadaalay inuu shaqo helo. Wuxuu bilaabay inay shirkad ka caawiso iibinta saamiyada, balse tababar kadib maamulihii shirkadda DWR wuxuu siiyey shaqo. Markii dambe wuxuu awood u yeeshay inuu guri kiraysto. Shaqadiisa ayaana kor u kacday. Sanadii 1987 wuxuu furtay shirkad maalgashi oo uu isagu leeyahay oo uu ugu magac daray Garner Ridge. Hadda Mr. Garner waa 66 sano jir. Dhaqaalihiisa waxa uu gaarayaa $100 milyan. Caalamka oo dhan ayuu u safraa. Wuxuu noqday qof soo jeediya hadallada dhiirigelinta leh. Wuxuu maalgeliyaa hay-adaha caawiya dadka guri la'aanta ah iyo hay-adaha ka hortaga xadgudubka ka dhanka ah dumarka. Intaas ayaan ku soo koobayaa sida looga baxo caqliga faqriga ah iyo faqiirnimada, iyo sheekadii cajiibka ahayd Chris Garner, ninkii darbijiifka ahaan jiray oo noqday taajir maalgashade ah.